كل وحلي ضمبو هبين ماء وحن هالكن ويمي بوقشو ويمي هو جميلة قوس كرر حسن ورنتي qoyskii dhibaatada adag ay soo gaadhay oo hadal aan shalay toole isbitaalka guud ee Gibiley aan ka soo jeediyay runtii daad arkasay runtii sida loo fasirayo iyo buunbuuninteeda oo aniguna maamul ahaan aan uga gol lahaa dardaaran guud oo la xijeclo oo ah inaynu ilaashano waxaanu wada leenahay hase yeeshee hooyo Jamiila runtii dee dhibaatada dhacday iyo xaaladda dardaaranka kala gaar bay hayno oo Jamiila hawl culus ba soo gaadhay oo qof kasto bashar ah iska daa qofka mas'uulka ah iyo qof kasto bashari u dareemi karay hooyo fooshaabeyno aragnay xanuunkeeda laakiin xaaladda hooyo Jamiila xaalad runtii dee cidi ku farxi karto oo la dhayalsan karo ma ahayn xaalad aad u adag bay ahayd Ilaahay ba subhanahu wa ta'ala maantana dee xanuunkaas oo soo maray dawaatay ag joogto alxamdulillah maanta waa caafimaad qabta aad iyo aad baan runtii xunba in xilliga ay soo kalifay hadalkaaga yaani hooyo Jamiila iyo qoyska raaxasan aanay dhibsanin oo caawa calool xumo aanay ku saaxanin waxa weeye hadal buu ahaa dardaarana runtii dhibtiidin soo gaadhayna waxa weeye shalayna waa ka warhaynay maantana waanu ka warhaynaa birina waan ka warhay doonaa waana mas'uuliyadda dawladda dadka shacabka ilaalintooda iyo wixii dhibaato ee soo gaadha iyo qofka bilaadanka ee dhibaatada soo gaadha laftiisa cadaalad sidoo heli lahaa waa mas'uuliyaddeeda oo waxa weeye nidaamkeeda ay leedahay shalayna ku jirtay maantana ay ku jiri doontaa marka runtii waxa weeye waa idin duceynayaa ilaahayna waxaan ku rajeynayaa caafimaadka aad maanta ba hayso inuu idin sii wado duceynana hadalkaana inaan dhibsan ayaan runtii kuugu yimi ilaahayna subhanahu wa ta'ala mar walba inuu wanaagayna waafajiyo baan rajeynaynaa dadka iyagana mar walba mas'uuliyiin ahaan ka daalimayno inaan u aqal celino wanaaga u sheegno kula dardaarano wixii dan guud ee naga dhaxeeya wanaagiisa in laga shaqeeyo qofka hooyo Jamiila wax u taraya dee hooyo Jamiila wuxuu iman karaa oo xuquuqdeeda la raadin karaa isagoo aan cidna dhaleelin warbaahinna tagin buunbuunin iyo waxaan jirina sheegin oo xafiisyada iyo nidaamka ay leedahay buu mari karaa laakiin qofkan xaafadiina waru haynin ma garanayay wixii guud la wada lahaana inuu dhibaateeyo runtii waa mushkilad anana taa mar walba waanu uga diganaa shacabka inay waxaan wada leenahay ilaashano waa arrin muhiim ah arrintan hooyo iyo waxaan ka wada hadlayo hooyo Jamiila iyo waxaan ka hadlaynaa runtii laba xaaladood kala duwan weeyii hooyo Jamiilana insha Allah ta'ala caafimaad baan u rajeynaynaa xuquuqdeedana wax weeye ay way doonto maaha mar walbana waanu ka xunnahay iyadii cid kasta oo dhibaataysan oo dadkayaga ah annaga cid walba uga warwar badan waxaanu ku seexnaa oo ku soo toosnaa inay dadkayagu nabad ku seexdaan horumar gaadhaan noloshooda la wanaajiyo taas mar walba runtii ah sida loo fasirayo dhayarsi iyo runtii dee waxba kaga jiraan aad iyo aad baan runtii uga xumahay buunbuuninta inta leeg wixii hadal xaggayga ka yimi hadiiba ay dhibsataan waan idinka raali geliynaa mar walba waxaan u jeednaa waa inaynu wanaag iyo sharaf iyo cisi aynu ku wada noolaano insha Allah ta'ala aad iyo aad baan maasantay taaganahay waxay soo marayba saaka ma sha Allah baan taaganahay ma sha Allah baan taaganahay intay timideen waan u mahadcelinayaa